السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتين باه كسور دوادا شيكا كمدا شيكا اللي باحيدي أن هالكن إذا سعوسين جري واحد دامنا صن كنالك خضر ومار waxaan ahay khadar iisu Omar hadii ay tahay markii kugu horeysay uu kanaalkani ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa subscribe saaso sidoo kale haddaad iga daawanayso bogga Facebook isagana follow day muuqaalkana like saar waayo waxa uu tahay muhiim muuqaalka iyo kanaalkaba sheekada waxa uu ku bilaamatay sida tan waana sheeko dhaxmartay nin Soomaaliyeed libaax in badan ayaa sheekooyinkii hore ku soo aragnay sheeko dhaxmartay nin geel jira oo Soomaaliya iyo libaax laakiin markan waa nin geel jira loo jirana waxa uu yiri markan waxaan xirgeeyay geeli sidii caadada u ahayd Soomaalida inta badan dabadeed geeli ayaan meel fog u xirgeeyay anigoo geeli barti ku haya ayaa habeenada kamid ah anagoo geeli soo xaraynay ayaa waxa la ii sheegay in lo'daydii oo reerkii jooga oo masaafo dheer loo jiro inay aroorso loduna waxay caan ku tahay inay biyaha maalin kasta cabto amba ay maalin dhaaf u cabto dabadeed lo'dayduna waxay u aroorisay masaafo meel fog ciidan kale lama ahayn oo aan aniga ahayn dabadeed raggii ayaan isugu yeedhay golaha geela joogay golaha geelu waa halka ardaaga geela ee lagu caweeyo waxaan ku iri waar waxaan guuro gelayaa oo waxaan aroorta doonayaa inaan lo'daydii arooriyo dabadeed raggii ayaa ila yaabay oo igu yiri oo halkii yareyd ee libaaxa caanka ku ahaydna sidee ayaad u dhaafi kartaa waxa ahayd buuri meel caan ku ah libaaxa inuu fadhiisto waliba kiisa dadqaadka ee dadka cunaa waxaana la oran jiray malkadii libaaxa amba xirkii libaaxa amba se wadadii libaaxaba dabadeed waxaan ku iri waar waan calool adeegaya dabadeed waan ku gujinaya raggii oo dhan waxay igula taliyeen inaan iska joogo aroortana aan ka laho dabadeed waxaan idhi aroorta ka gaari maayo inaan ka laho oo lo'dii arooriyo laakiin waxaan go'aansaday inaan xilligii guuro galo waan ku gujiyay buu yiri intaan calool adeeg muujiyay wax xuba oo qori ama sito qolka laga reebo budka amba usha aan gacanta ku sito inkastoo marka keligii aad sidato qori ee libaaxa aad sashaan qorigu aanu waxba ku qabanayn inkastoo ku waabisa mooyaane raggii hore waxay kaga kalsoonaayeen usha iyo wixii la mid ah inay libaaxa kaga nixiyaan dabadeed iska eriyaan wuxuu yiri waxaan ku soo dhawaaday xirkii caanka ku ahaa libaaxa oo laga baqan jiray habeenkiina aan la mari jirin dabadeed waxa laga talaabi jiray buu yiri laag yar oo caan ku ahayd in libaaxu fadhiisto anigoo foojigan oo dareenkaygu taagan yahay oo iska garanayo libaaxu bartanii si fadhiisan doono ayaa waxaan sii gurtay faraq dhagaxaana si aan hadhow libaaxa isaga celiyo libaaxa Soomaalidii taqaanay waxay oran jireen waxa uu eega cidiyahaaga farahaaga intaba haddii uu arkay inaad gargarinayso oo aad ka baqato waa kii kugu dul dhaca si kalena waa ku soo gaadi karaa oo waxa uu jecel yahay isagoo aadan arkayn inuu kugu dul dego inkastoo ku cuni karaaba isagoo ku arkaya amba aad arkaso laakiin wuxuu ka jecel yahay inuu ku soo gaado dabadeed kugu dul dhaco wuxuu yiri anigoo faraqii dhagaxaanta iska sita ayaan laagtii ku soo dhaadhacay mise waa bahal aara oo sida bisada u soo jiifa libaaxu waa bahda bisada oo sida bisada ayaan tusaalada ku siinaya ayuu u soo jiibsadaa wadada isagoo cagaha hore fidinaya kuna baabiinaya wajigiisa isyareynayana dabadeed waxaan arkay inuu libaax yahay waxaan hor fadhiyaa dabadeed bahal dhagax ayaan qac ku siiyay anigoo ka agtaray dabadeed waa uu booday isagoo iga carari markaa wax yar kadib ayuu haddana wuxuu yiri sidii leeg wadada ii fadhiistay haddana geedka agtiisa ayaan dhagax kale ugu dhuftay anigoo qaylo iyo wax iskugu daraya oo buuq samaysanaya si uu ii moodo inaana kaba baqanayn mar labaad ayuu booday buu haddana markii saddexaad ayuu sidii si leeg ii hor fadhiistay dabadeed waxaan habeenkii oo dhan kolba anoo ka istaagaya haddana dhagaxaanta ku tuurtuuraya oo aan kaga nixnayo kolba anigoo qaylo iyo iskugu daraya hanjabaad iyo dhagax oo ku tuuro geedaha agtiisa aan la dhaco wuu boodaa ayuu yiri markii saddexaad ayuu booday buu yiri isagoo iga cararaya ilaahay ayaa ka xiyay yiri markii saddexaad libaaxu sidaan sheekooyin hore ku soo aragnay waxa la yiraahdo saddex jeer hujuum ku soo qaado oo saddexaad jeer ku guul dareysto inta badan waxa suuragal ahaan jirtay raggii libaaxa yaqaanay sidii oran jireen inuu marka afraad iska tago adigoo arkaya oo halka iska maro dabadeed markuu qanco oo ahayn wuxuu raganimadiisa inuu mar afraad kugu soo saqajaamo mar hadaad saddex jeer iska waabsay markii afraad wuxuu iska tagay libaaxii anigoo reerkii ayaan galay anigoo aroortiina ilaahay igu nabadgeeyay inaan lo'dii aan aroortii arooriyo oo aan ka gaadho reerkii dadkii aan ka imid iyo kuwaan u tagayba way yaabeen waxay yiraahdeen xilligan maxaa ku soo guuro galiyay ilaa muu jirin telefoon iyo waan imanaya iyo waan soo socdaa taniine waxa la oran jirun qofku isagoo soo galay baa la arki jiray iyo hebel oo soo galay waxaan ka yimid
dabadeed berigaana safarku xiisa ayuu lahaa lama odhan jirin lama aqoon xilli uu soo galayo qofka safarka iyo qofka socotadii iyadoo imika la sii sheegi karo saacadan ay joogno la odhan karo hebel waan soo socdaa berri baan soo baxaya iyo halkaasaan maraya iyo xidhkii yaraa ee xaggan ayaan dhinacan ka soo maraya oo imika telefoon lagu wada hadlayo laakiin berigaa may ahayn oo xidhiidhku san mu ahayn qofku isagoo soo galay baa la arki jiray oo halkan fadhiya hebel baa yimi dadka way yaabeen buuro waxay ahayd meesha meel libaxa caan ku ah oo aan habeenkiiba la marin dabadeed saan u soo maray ayay yaabeen ilaahay iga soo badbaadiyey ayaan idhi sheekadan yari intaa ayay ku eg tahay waxaan ahayd sheeko ka mid a sheeki libaaxidii goormay kugu daray aad libaaxis aragtaan oo mid ka mid a soo qaadanay sheekadan iyo sheekooyin kaleba kanaalkan iyo muuqaalo kale oo ku saabsan adduunka waad ka daawan doontaane haddii aad ku cusub tahay oo tahay markii kugu horreysay aad daawanayso waxaan leeyahay subscribe saar haddaad ilaa dhammaadka ila joogtay muuqaalkana like iyo share sii saar wixii tale iyo tusaale ana qaybta commentiga nagu soo reeb dhammaantiin waad mahadsantihiin